waxaan runtii aan isweydiiyey dadka Soomaaliyeed maxay ugu xiiso qabaan inay naar galaan xiisaha intaa leeg ee dad Soomaali u qabto inay jahannamo aadaan maxay tahay ilaan abwaankii weynaa ee Sultan Timcade Abdullahi Sultan Timcade wuxuu sheegay isdilkan markuu ka hadlaayay gabaygiisii dugsi mala qabiyadeed waxay dumisay mooyaan wuxuu markuu natiijadeeda uu ka hadlaayay waxay gaarsiinayso wuxuu yiri dhaxalkeedu waa jahannama iyo dogobtan aan Soomaa marka waxaan la sii socdo waxaad wadaba waxaad ka dhaxlaysaa waa jahannama iyo dogobkii naareed way naar baa la galayaa marka meeshii la yiraahdo al-qatil wal-maqtul fi an-nar ka wahdila iyo kala dilaba labadan isa soo aaday ee qabyaalada iyo xamiyada al-jaahiliya isu dilaysa labaduba naartay galayaan marka maxaad u maleynaysaan dhowrkii bariya la soo dhaafay ama wagiga la soo dhaafay inta ehlun naar Soomaali ka dhimatay inta leeyihiin meeqa ehlun naar baa tagtay naartay wada aadayaan ma garanaya marka xiisaha inta la eg iyo maxaasiga iyo dhadhanka inta la eg ay Soomaali ay u qabto naaru jahannama aan ma garanayo wayna garanayaan hadaad weydiiso kuwa qoriga ridaya wiilasha iyo kuwa soo diraya iyo kuwa lacagta bixinaya iyo kuwa social media ka abaabulaya ee ka didinaya intaba hadaad weydiiso أن القاتل والمقتول في النار إن يتهسى كل شيء حتى لفظ يقول آخرنيا ساسو يقول آخرنيا وأنا ودي أرسيه إنه قالوا دجال كسان شيء Soomaali way soo dili jirtay laakiin waxa dheer waxa weeye oo sii hurinaya imika waxaan u bixiyay dagaalada social media dagaaladan waxa laga huriyaa oo laga abaabulaa unfortunately social media laga abaabulaa kacay reebalay inta kacay dadka abaabulaya ma taqaana waan ixtiraamaya dhalinyarada Soomaaliyeed laakiin qayb kamida oo laga yaabo markay dalkan ka baxayeen haday meelaha jiraan xataa inay tahriib iyo silac iyo kadeed marka wixii uu ka cararay ama ka carartay ee uu tahriibay ee tahriibiyay ee silac ku dilay ee saaxiibadii laga yaabo inay baduhu liqeen ee uu cadaamay kii Ilaahay ka badbaadiyay ee meelaha tagay ayaa haddana wuxuu rabaa calool wixii ay ku bukootay inuu ku bogsiyo wax la yaab leh